munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay ugaas maxamed ugaas jaamac baruur oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho soo dhaweynta ugaaska ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad aqoon-yahan dhalinyaro salaadiin haween iyo qaybaha bulshada ka soo jeeda degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ugu horreyn ayaa waxaa madasha hadal ka jeediyay waxgaradkii aqoon-yahanadii iyo haweenkii goobta ku sugnaa ahlu khayrna waxa way asaasiisna qayb uu ka yahay maantana waxaan leenahay ugaas ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii iyo walaalahaagii ee Qoryooley alxamdulillah alshura maanta waxa farxad ii ah anigoo 40 sano Qoryooley aan ka maqnaa reer Qoryooley badan 2011kii xamar aan soo galay hal iyo laba maahan inta kale aan arkin oo waysanaa farxadan maanta waxay u sugantahay ilaahay ka suko waxay u sugantahay ugaaskeena intaan reer Qoryooley isku keeneen kulankan oo hadda qiimo leh oo ma aragtay ugaas maxamed khayr Allah siiyay oo bilaabay waxaan ma aragtay ugaaska ugu hambalyeynayna kuna garab taaganahay ma aragtay in ma aragtay wanaagan oo sameeyay in ma aragtay adduunyo aakhiraba ilaahay salkiisa wanaag ka dhigo horta maanta maalin khayr badan oo aad u wanaagsan waaye haddaan anagoo reer Qoryooley ah dhan inta isugu nimid oon is arkin muddo 40 sano dadaan arkinaa fadhiya maanta meesha waxaad in reer Qoryooley haddaan nahay dad aad isu jecelaanahay oo isku niyadsan qabiilna dad u xisaabtama waligeen ma ahan marka ilaahay idinkiis waxaan jeclahay sida tan maanta aan haysano mid ka fiican in ilaahayna gaarsiiyo Qoryooley markaan dib ugu noqdo aabayaasheeni asaasay waxay ahaayeen dad isku xiran oo hal meel ka soo wada jeedo xaqiiqatan koow iyo laba ma la dhihi karo waxa ay qabteen annagana waxaan isku dayeena kulay maba gaari karnee inaan dib aan u hananno waxaan soo hiloobay meel isku dhaladay Qoryooley aseedi ilaa Firsoolee adeer taasaasin tusaase xubul wadan min al-iimaan ya kamid ah wadanka jacalaasha iimaanka kamid ah nin iimaan la yaasidaas weel kore laakiin kalma ogbo meel isku dhalad iyo badhaaf ma qanjabaya marka soo nagasho wanaagsan ugaas maxamed jaamac ilaahay khayr ka siiyo reer Qoryooley maanta nisyaantii isbarti ugu dambeyn ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ayaa uga mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen bulshada degan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose sida sharafta leh aad ii soo dhaweyseen aad cimaamada igu saarteen koofiyada